بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maantay isugu nimid kulan ay ku wada tashanayeen bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan kulankaas oo aan uga hadlaynay muranka ama dhibaatooyinka ka jira maantay magaalada Beledweyne maalmaha dambe ka jiray runtii hadii aan nahay bulshada rayidka ah ee gobolka Hiiraan waxaan cadeynaynaa in aanan qayb ka ahayn abaabulka iyo isku soo baxyada lagu taageerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaheena waan taageersanahay laakiin maantay la joogo iyo xilliga reer Beledweyne ay ku jiraan in aan isku soo baxno oo aan taageerno ma awoodno mana sameyn karno sababtoo tahay maanta reer Beledweyne dhibaato culus ay ka soo baxeen dhibaato weyn ayaa ka gaartay fatahadii bishii la soo dhaafay May ku dhufatay magaalada Beledweyne oo ilaa iyo hadda dadkii ay banaanka ku maqan yihiin magaalooyinka ama gobolada ama maamul goboleedyada kale ee dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay ka sameeyeen mashaariic waaweyn oo magac leh sida aeroboorada garoomada iyo mashaariic kale oo fara badan waan ogsoonahay aeroboorkeena xaaladdu ku sugan yahay waan ogsoonahay wadooyinka magaalada Beledweyne waan ogsoonahay intii madaxweyne Farmaajo wadankani oo ka ahaa madaxweyne 3 jeer ay ku dhufatay fatahaad Beledweyne markii labaad lacagtii walaalena Djibouti ay nasiyeen iyo tii dawladda ay yaabaheen intaba waxa la helay biyo baxadii saddexaad haddana biyo baxadaana wax gurmada kamaan helin dawladda dhexe banaanbax lagu taageerayo iyo mid lagu mucaaradayo intaba bulshada reer Hiiraan ama bulshada reer Beledweyne maanta diyaar uma aha magaalada Beledweyne waxa ka jiro isqaqabsi siyaasadeed iyo arrimo dana gaar ah oo siyaasadeed bulshada reer Hiiraan ama bulshada reer Beledweyne arintaasi wax shaqo kuma laha taas ayaan cadeynaynaa wax shaqo kuma laha cidii banaanbax abaabulayso iyo cidii banaanbax ka soo horjeedo waa dana siyaasadeed oo ka jirto magaalada Beledweyne bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan maanta waxay u istaageen ama ay kulan u yeesheen inay cadeeyaan موقفكودا in madaxweyne Farmaajo mucaaradadiisa iyo muxaafadadiisa labadaba aanan waqti u hayn hadii aan reer Beledweyne nahay dhibaatooyinkeena gaaray dad guriyahoodii qayb ka mid ah biyo ku jiraan mas'uuliyad ka dumeen guriyihii ka dumeen ilaa ay hadda banaanka jiro dadan taageerayna naga masuurtawdo waana madaxweynaheeniyo mucaaradad iyo warxun inta baayadana uma hayno Soomaalidu waxay tiraahdaa hashinin goran oo tumay barbarna uma fiyo hadii aan nahay bulshada reer Hiiraan gaar ahaan bulshada reer Beledweyne dawladda federaalka waxba nooma qaban mid Hirshabeellana waxba nooma qaban marka waxaan leenahay isqaqabsiga siyaasadeed iyo danaha gaarka dadka xilka uu ka dhamaaday kuwa uu ka dhamaan rabo intaba waxaan leenahay si tartiiba oo daacadnimo ku jirto oo alla ka cabsi leh bulshada loogu mashaqay jirin loogu shaqeeyo hadda waxa maanta isugu imaaday kulan weyn bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan is-afgarad iyo wada hadal waxa ay ka wada hadlayaan waxay xaaladda ka taagan Soomaaliya qaasatan magaalada Beledweyne waxay isku afgarteen fikirro badan meesha ka soo baxay dadka maskaxdooda shiileen waxay isku afgarteen in ay dawladda taageero ay hadda u haayaan oo ay ayaga ka keensadeen ma jirto mucaaradna maadaama waxa la yiraahdaa aabba hadduu wuxuu yahay xitaa waa ku dhaliyo ma aragtaa meel looga leexana ma jirto walad caasina wuu jiraa hal wiil caasina wuu jiraa waxa la yiraahdaa waalid caasina wuu jiraa marka hadday dawladda anaka ay na garab martay ma aragtaa inaan haddana aan ixtiraamno ay naga mudan tahay dawladdeena oo ma aragtaa maanta aan madaxweynaha aan aflagaadii waxba aan u geysanaynin waxaan leeyahay horta waa kullukum mas'uulan can ra'iyati aan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo وكلكم مسؤول عن رعيته الله قف والبحو مسؤول كيها لويدينها ليري
maxaa jirta maalin yawma laa yanfacu maalun walaa banuun maalin maal aysan iyo maaragtay ilmo iyo waxaas oo dhan aysan waxba anfacaynin gabartii beledweyne maaragtay biyaha ku dhimatay ama wiilkii biyaha ku qaadeen ama hooyadii biyaha ku qaadeen adaa mas'uulkii adaana lagu weydiinayaa waxba maadan ka geysan adoo joogtidee 3 mar biyo isaga soo daba noqdeen 3 bilood ka bacdina biyo sugaa nahay ma ahan in la iska qabsana in la ismaartay fadeexayna ma ahan mas'uuliyada meeshan taal mas'uuliyad markay meesha taalana shay dheeldheel ma ahan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inta waxaan leeyahay garoon banooniya 100 milyan ku dhibteen dad maata oo ba'ana ahane shiba ka dhaxdeen marka waxaan leeyahay maalin ay idin sugaysaa anaka waa idin ixtiraameena bulshadeena waxay isku raacday haddii maanta wadadan inta loo dhis islaamiga loo dhis biyaha naga leexin lahaa gurbaankii anaka kabeebay aan qaanahay saaka kabeebeyda xirna ilaa galabta tumi lahayn laakiin sorry maxaan kabeebay ku dunaa kurbaaban hayse xal yar nin qooqan aw cila dhalaaliir horta goormaaba qooqna anaka waxaaba birmee birdama biibaxada sugo hayna hawna soo nagu soo socotee marka madaxweynaha waxaan leeyahay cod ku taageersan malahan cid ku naceysana malahan ma fahanteen anakana waxa waaye qadarta ilaahay noo qadaray inay maalin walba dhul qurux badan haysana laakiin masiibooyinka adduunyada ka dhacay kamid tahay waana maaragtay waa isku tali jirnaa haddaba xaafada la badbaadiyay maalintii bixireennadii anaka magaalada ee dadka shacabka ee rayidka ay sameynayeen xaafada ku badbaaday oo magaalada kamid ah waxaan rajaynaynaa biyaha dambe soo socdana xaafada buundaweyne ahayd biyihii maaragtay kiliga waraab oo laga furo oo inta laga furay oo xaafado badan oo biyo soo gali jiray ani gurigayga kamid ahay ma soo galin alxamdulillah waxaana ku naafoobeen biyihii la badbaadiyay haddana waxaan isku dayaynaa inaan badbaadsana isku dayaynaa marka waxaan leenahay allah xaqa ku tuso doorasho iyo waxa dambe aad u ordaysaa horta tii hadda ku saarneed ka soo baxaan leenahay annaga waxaan u baahanahay wax qabadkaan u baahanahay iyo waxay yihiin wax la isku sheegaa ma ahan boros la aad diyaarisay bisa wax naloogu qaban karaa madaxweyne waxyaabo fara badan adiga maaragtay madaxaada nooga rakaataysan oo anaka dareensanahay marka waxaan ku sheegaynaa madaxweynaha aabo waxaan ku leenahay waxa adiga maaragtay wax qabadan ka sugaynaahe taageero waxa dad noo qalta anaka si fiican ku taageerana wax qabadkeena noo dhameystiran leh maanta waxa isku imaaday bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan qaybahooda kala duwan runtii waxaan ka shireynay bariyaan waxyaalaha ka dhacay magaalada runtii aad muddo jahawareer badan oo ka jiray in maaragtay dad siyaasiyiin ayaga haysto buuq oo ka dhex jiray runtii horta marka hore waxaan rabnaa inaan iska bari yeelno wax meeshaas ka jiro bulshadana inaan la caburinin maaragtay oo aan la caburinin oo maanta bulshadii madaxweyne farmaajo taageer inaan loo diidin dadkaan markii ay banaanbax rabaan cid ka celi karta ma lahan wixii ay markaas ay damacsan yihiin shalay markii madaxweyne farmaajo la dooranayay 3 sano ka hor guriga aan joogo maaragtay bulshada dadka soo kicinaan ka mid ahay laakiin annagu soo kicinay soo bixin ayagoon la qasbinay banaanka imaadeen ilaa waaga uu ka baryay waa socon subax haddana waa bilaawna banaan bixi runtii waxay ahayd waxyaalo dadka ka imaaday waxa kale oo dhacday intaan joogay xilligu Cali Cusub la joogay waxa dhacday inuu Cali Cusub oo markuu maqaamka gobolka Banaadir u doodayay in la rabay banaanbax in loogu suubiyo taageero in lagu taageero erayadiisa oo farmaajo loogu soo horjeedo runtii bulshadu waa diideen dadku waxayna rabeen lagu maqasbi karo maanta soo baxa farmaajo la taageerayo runtii dadku waxa uga daran dhibaatada haysato xaaladda ay ku jiraan fatahaadaha ay ku jiraan dawladda Soomaaliya maaragtay runtii waxaan ku dhaliilaynaa maaragtay inaan waxba ka qabanin fatahaadi waxyaalaha ugu daran fatahaadi waa dadka hadda qaarkood ay soo noqonayeen waxaa jirtay lacag 6 milyan dawladda maaragtay Itaaliya ay bixinaysay runtii barbosalkii lagala daahay runtii lacagtaasna maaragtay in wax looga qaban waayo in laga daahay waxa kale oo jiray maalin wasaaradda qorsheynta ee maadan ay sheegeen inay mashruuc u hayaan ay World Bank runtii hawshaas ma naqaan waxa dhibka haysto anaga 4 bilood kadib qaxan sugaayo bulshada isku tashiyo wadaa intay gaaraysa lama ogo marka waxaan rabnaa waxa kale oo jiro runtii waqtigan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waliis beledweyne ma imaan 3 sano iyo gogo waliis muusan imaan goboladiina la mid ka ahay dhalinyaradii maanta goromano u sameeyay lacag dhowr boqol kun oo dollar lagu baxsho runtii anaga nasiibkaas maanan helin noo ma imaan marka wax ay dadkan ay ku taageeraan maanta ma bahayaan haddana dawladdeenu waaye oo ma nacbin waxna ma xumaynayno ma aragtay afdaboona waa dahab intaas anaga kaafisala afkii aan ku amaanay haddana maanta uma soo horjeesanayno laakiin dawladda waxa laga rabaa in wax qabad la imaado ummadaan burbursan ee dhibaatada gaartay ee maanta dhibka ku jireen oo imaado in maaragtay aan lagu mashquulin nin siyaasi oo xil ka dagay sawirka farmaajaan qaatay iyo howlo noocaas inaan maaragtay aan lagu mashquulin dawladda ay ku mashquulin dawladda wax dhabe ay dadkan ugu imaado reer beledweyne reer beledweyne
runtii waxaan aad ururada bulshada rayidka ugu imaanayaa inay doorkooda maanta kulankeena aad looga wada hadlay in maaragtay la qorsheyn doono kulamo waaweyn oo looga hadli doono waxyaalaha naga maqan runtii waxaan rabnaa in ama labaad iyo saddexaad aan soo jeedinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya magaalada waa magaaladiini madaxweyne farmaajo meeshaan saa xukumo cid ka hor istaagi karti cid u diidi karta ma laha waa maaragtay waxay ka mid tahay Soomaaliya beledweyne wax laga diidayna ma jirto laakiin wax lagu taageero waa in dowladda la imaado waxaa jiro nidaamka meeshaan ka jiro oo ka taliyo oo maaragtay oo boolis loo wax kasta leh maanta haddaan damacno inaan bulshadeena aan u bannaan baxno ciddaan rabno cidna ka hor istaagaysa malaha taliya booliska warqada aan geynayno wax mushkile ma lahan annagana waa isku soo baxaynaa dabcan marka waxaan rabnaa in dadka waxaan weliba si goonaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada beledweyne buuqa jiro waxyaalaha maanta ama maqlayna in la dejiyo dhib annaga uma baahnin marka waxaan u baahannahay inaan waxqabad helno wixii naga maqan aan helno wixii annaga aan u baahannahay wixii annaga aan wadnana inaan suubsanno maanta waxaa iskugu imaanay kulan ay iskugu kulmaayeen dalladda bulshada rayidka ah ee gobolka Hiiraan kaasadan beledweyne aan uga hadlaynay caqabadaha maalmahan ka taagan magaalada beledweyne taasoo ah in wax la diido in wax la mucaarado anaga intaas haddaan nahay dalladda bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan kaasadan beledweyne inaan qayb ka ahayn inaan wax taageerin inaan mucaaradin ay tahay annaga waxaan nahay indhihii lagu tashanayo kan wax mucaaradana wuxuu ku mucaaradi karaa inuu qayb ay ka yihiin ururadii bulshada rayidka nin kaligiis oo dana siyaasadeed qaar wato iyo nin kale oo wata xil loo soo diiday wax isqabsaday inaan bari ka nahay mideeda kale dowladda federaalka macnaha aan ku dhaliilayna ayadana ma dhahayno dowladdeena waaye madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweynaheena ra'iisul wasaare Xasan Cali midda kaliya oo ka gaar waxay tahay aniga aqas ahaan noo qusay waa dhalinyarada waxaa ogsoonahay inuu garoomo badan gobolada qaar maamul goboleedyada oo u qabtay sababta beledweyne oo ka soo ormisay beledweyne waxay ka argsan yihiin aan weli hadda aan hayn inuu imaaday oo waxba ka qaban waxaa haynaa garoomo badan oo qarash ku bixiyay oo kii ugu dambeeyay oo ahaa garoonka Xudur aan ogsoonahay Xudur oo go'doon ku jirto iyo beledweyne qadiimi oo la yaqaan markii la dhahaa siyaasad ahaan dadka oo saameynka badan ay ku leeyihiin ay ka soo jeedaan sababta loo gaabay aan ra'iisul wasaaraha taas weydiinayna midda kale oo aan ka hadlo waxay tahay gabagabadii aan joognaa anaga uma baahnin hadal iyo wax anaga waxa u baahanahay wax qabad dad in wax la sheego oo afka laga sheego oo la imaado nala soo booqdo oo meelihii la tago oo kadib la baxo waxa ogsoonahay saddex mar ay biibahan ugu soo baxay intaba dowladda federaalka way imaado oo madaxweynaha ugu horeeya ilaa hadda wax muuqdo ay ka qabteen magaaladan uma jeedo kulan ay maanta isugu imaadeen ururada bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ugu hadalnay qodobo dhowr ah waxaan halkan ku cadeynaynaa inaan beri ka nahay mase aan ka fognahay banaanbaxyada loogu soo horjeedo dowladda federaalka iyo wax lagu taageerayo haddii noqon lahayd dowladda federaalka maadaama dad ay isqabsi dana siyaasadeed ay isku haastaan kulankaas beri ayaa ka nahay qodobkaasi waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay xuquuqda ka maqan gobolkan Hiiraan ay si degdeg ula soo gaarto maanta meeshan waxa isku imaaday dhamaan ururada kulan ay ku yeesheen ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan kaas ay ugu arinsanayeen qodobo dhowr ah run ahaantii maalmahan magaalada beledweyne waxa ka socday wax dibad baxyo qaabo laakiin anaga bulsho ahaan ama maadaama aan madalno bulshada rayidka gobolka Hiiraan maalmaha wax ka socda booq uma naqaanaga banaanbax waa wax banaanbax u qaabo marka run ahaantii anaga banaanbaxay xayata waxa socda iyo booqa magaalada ka jiro ururada bulshada rayidka iyo dhammaan bulshada reer beledweyne anaga matalno waxaas qayb kama ahan shaqana kuma lahan waxa meesha aan ka aragnay ama baraha bulshada aan ka arkaynana waa dad siyaasiyiin oo xilka laga qaaday ama qaar xil raadis ah ama qaar xilka haayo haasto run ahaantii anaga waxaan cadeynaynaa inaan waxaas anaga beri ka nahay aan shaqo ku lahayn waqti aan banaanbaxna mudaharada sameeyeen lama wajoognabo barkay dadkeena qalbar waxay ku maqayeen fatahaadii beledweyne ku barakaceen qaar kalena waxay ku mashquulsan yihiin guryahooda hagaajiskoodii iyo waxyaalo ku mashquulsan yihiin run ahaantii marka waxaan leenahay anaga reer beledweyne waxay u baahan yihiin wax qabad dhab ay u baahan yihiin lama baahna in lagu mashquuliyo dibad baxyo iyo waxyaalo aan jirin run ahaantii sidoo kale dowladda federaalka waxaan ka rabnaa anigana waxyaalo badan ay noo ballan qaaday ay sheegtay inay wax ka qaban doonto sida arrimaha garoomada iyo fatahaadaha ee ku soo laabtay beledweyne run ahaantii waxaan ogsoonahay 2019 iyo 2020 waxa u dhaxeeya waa bilooyinkaas waxaan ugu soo laabtay laba biyo baxo
runtii dawladda federaalka waxay noo ballan qaaday lacag aad u yar oo $500,000 xilligay imaatay xilligay ballan qaadana waan dareemi karnaa marka waxaan u baahannahay shalay waa ognahay wixii ka dhacay qardho ka muxin walaalaheen reer qardho wax nagu dhacay wax la mid ayaa ku dhacay 4 saac gudood ayaa hay'adda loogu jawaabay reer Beledweyne ama reer Hirshabelle marka maxay galabsadeen dawladda federaalka maxay ka hadlaysay waxaan ognahay 3 bari 3 habeen ayaa qorax loo taagnaa loo mudaharaada loo mashxadaday maanta bulshada reer Beledweyne oo marka in dad siyaasiyiin ay dhahaan soo baxa shalay ayaga soo baxay maantana ayaga bixi karo marka dawladda federaalka shalay abaa alla ku galnay nooma gudin waxba nooma qabanin wax qabadkii aan ka rabnayna kama hayno runta waxa ugu baahannahay anaga nool garoomadii noolama dhisin fatahaadi waxba laga ma qaban waxbarashadii caafimaadkii isbitaalkiina waqtiina xayata dayacada ka jirto sidoo kale gobolada dalka dham ilaa degmooyinka waxa la geeyay xayata oo qalabkii caafimaadka coronavirus-ka Beledweyne waa u jeedin dhibaatada haasato iyo waqtiga wax la keenay runta aniga dawladda federaalka dhaliil ayaa ka qabnaa dhaliil aad u tameena waa dawladdeeni mucaarad kuma nihin laakiin waxa ka codsanaynaa inay waxay noo sheegtay inayna af noqon wax qabad dhab ayaa ka rabnaa taageerada ummadda reer Beledweyne ama bulshada reer Beledweyne taageeradooda adiga ka kasban karo 14 sano taariikhda ayaa xusun doonta haddii wax qabatina waa adiga idii galaysaa historiga haddii wax qaban